Shayma waa gabadh la nool naafo saamisay gacmaheeda hase yeeshee taasi kama hor istaagin inay ku guulaysato xirfadeeda. Dadka naafada waxay qayb muhiim ah ka yihiin bulshada waxayna leeyihiin xuquuq iyo fursado ay ku horumarin karaan noloshooda. Shayma waxay caddeysay in naafanimadu aanay ahayn awood la'aan, taa beddelkeeda waxay muujinaysaa in qofku awood u leeyahay inuu horumariyo xirfadiisa, dhisto mustaqbalkiisa isla markaana bulshada wax ku soo kordhiyo. وانا xirfadan isleeyahay boqolkiiba boqol faa'iido leedahay adagoo 2010 ilaa iyo waxaan soo bandhigay camal inaan ku shaqayn karo waxaan ogaaday 2020 waan muddo dheer ban aad u soo waday 2020 markaan waxaan isku dayay inaan dadka u mariyo xafada jaarka taayada wax walba u mariyo still 2022 waxaan furtay meeradina waxaan dib ay magaranaysaa aan anigu wax barashada iyo wixii isku hayn karo waayay 2023 bay baabaday 2025 waxaan joogaa meherad kamid ah meherada ku yaala Hargeysa oo si walaashay leedahay oo Hargeysa ku taal beauty salon ilaahay amkiisa waxa jirta marka dadka qaar aad u marinaysay ay goornayaan su'aal balsi ku warinaysa aad marin kartaa wala saad u qabatay halse caqabadahaas way yar jirtay ma garanaysaa halbadnaa dadka mooyaane laakiin caqabad weyn oo qaadataas ay gala kulantay ma jirto nafadu laba u qabsan waa naafo maskaxeed naafo jireed qofka naafo maskaxeed qabo horto Allah caafiyo isaga la firkiisu xirfado dana u baran karaa isagoo naafo maskaxeed maskaxdiisa dana aanay dhamaystirin hadana xirfado u baran karo kaaga sii wacan yahay jirta qofka naafada jireed ahna waliba sii waxaan dumarka ayaa leeyahay xirfad ku darsada aqoontiina waxaan siin lahaa ay tahay in naftooda marka ugu horeysa iyagu dhiirigeliyaan oo naftooda iyagu intaana bulshada dhiirigelin iyagu idhahdaan waxaad qaban kartaa waad samayn kartaa. Sheekada Shayma waxay xasuusinaysaa bulshada in dadka naafada ay leeyihiin karti, hal abuur iyo awood ay ku gaari karaan waxqabadyo waaweyn marka la siiyo fursad iyo dhiirigelin.